السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka soo dhawaada dhammaanteen waxaan haysanaa waqti xadidan maalin walba 24 saacadood ayaan haysanaa waxaad seexataa 7 saac ilaa 8 saac 16 ilaa 17 saacadood ayaa kuu soo haraysa muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 4 shay oo u qalma in waqtigaaga aad gelisid si aad u noqotid qof guuleysta balse intaan u gudagalin muuqaalka fadlan haddaan ugu cusubtahay nagu soo biir channelka subscribe inoo saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada haddii aad facebooka nagala socotaana pageka inoo like garee muuqaalkana la wadaag saaxiibadaada mahadsanidin waxaad ka jawaabtaa dhowrkan su'aal intaan u gudagelin 4 shay oo muhiimka ah 16 ilaa 17 saacadood aad haysatid ma ku bixisaa waxyaabaha u muhiimsan noloshaada maalin kasta miyaad ku bixisaa daqiiqad kasta iyo saacad kasta oo maalintaada ah hawlo qiimo kuu leh imise saacadood ayaad ku lumisaa baraha bulshada ama telefishinka oo kale imise saacadood ayaad ku bixisaa ka shaqaynta diirad saaridda waxyaabaha ku hormarinaya oo noloshaada dhisaya hamigaagana rumeynaya imise saacadood ayaad ku bixisaa la hadalka qoyskaaga ama la ciyaarista carruurtaada haddii aad ku bixiso wax ka badan kala bar waqtigaaga waxyaabaha aan muhiimka ku ahayn waxaa halkaa laga arkayaa in waqtigaaga aad ku bixisay waxyaalo maalayacniga waana wax laga naxo waxyaabaha mudan in waqtiga lagu bixiyo number 1 xaqiijinta hadafka hadafku wuxuu noqon karaa gaarista arrimo kala duwan sida ganacsiga waxbarashada ama fulinta qorshe nololeed tusaale ahaan waxaad leedahay shirkad waxaad doonaysaa shirkadaadu inay noqoto mid wada gaarta daafaha dalka oo dhan oo aad iyo aad dalka looga yaqaano wax soo saarkeeduna uu yahay mid heer sareeya ama waxaad aasaastay urur midkaasi oo aad doonaysid inuu noqdo ururka ugu saameynta badan dalka waxaa waajib kugu ah markaas inaad mar walba ku dhex jirtid xaqiijinta hadafyadaada lambar 2 ujeedo helitaanka ujeedada aad u nooshahay waxay kaa caawisaa inaad ku noolaato noloshaada oo ujeedo leh waxay kuu horseedi kartaa dareen xakameyn qanacsanaan guud dareenka ah inaad noqotid qof qanacsan ama qof qiimo leh waxay kuu suurtagelisaa inaad noqotid qof ujeedadiisa mar walba fahma number 3 dareenka guushu waxay ku timaadaa dadaal dhan walba ah waxaad u baahan tahay inaad muddo badan sabartid weliba waxaad u baahan tahay in wax walba aad u bixisid sidii aad u guuleysan lahayd haddii aad ku dadaashid inaad noqotid qof ku guuleysta nolosha qeybaheeda kala duwan waxaad noqon doontaa qof mar walba salaanta loo saaro waa in guushu marka hore kaa tahay dareen waxaan ku dadaalnaa inaan guuleysano waayo qof walba wuxuu daneynayaa dareenka ku jira guusha kaasi oo ah mid wanaagsan oo ah farxad iyo jacayl mar walbana qofku wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado nolol farxad leh oo dareen leh oo wanaagsan qof walba wuxuu u dadaalaa energy-giisana u bixinaya wax walbana uu sameynaya siduu u guuleysto waa inuu farxaa waa inuu noloshiisa helaa deganaan qofku markuu helo deganaan iyo farxad iyo wuxuu ku qanco wuxuu noqdaa qof noloshiisa inta badan si deganaan leh u fiirsha number 4 dareenka xakameynta nafta isxakameyntu inaad noqotid qof isxakameeya mar walbana ka fiirsada waxa uu sheegayo noloshiisana xakameynteeda ku dadaala waxay kugu dartaa kuwa la jecel yahay waxayna kaa dhigtaa inaad noqotid qof gaara yoolalkiisa fog ee mustaqbalka cilmi baaris ayaa muujinaysa in lahaanshaha isxakameynta ay muhiim u tahay caafimaadka iyo ladnaanta si aad u noqotid qof caafimaad qaba guuleysta ladnaadana waa inaad noqotaa qof isxakameyn kara wax walbana aan faaq la dhihin wax walbana aan ku degdegin noloshiisana si degan ugu raaxaysta isxakameyntu waa awoodda qofka uu ku kontaroolayo shucuurtiisa fikradihiisa iyo habdhaqanka mararka qaar tusaale ahaan marka uu wajahayo jarribaada iyo dareenka fiicnayn oo mararka qaar kaaga imaan karo bulshada ama dad kugu xiran ama dad asxaabtaada ah ama familkaaga nooc rabo ha noqdo habdhaqan aadan ku qancin ayaa mararka qaar kugu dhici kara waxaad u baahan tahay inaad iskontaroolshid hawl walba waxay u baahan tahay fulinta hawsha waa geedi socodka lama huraanka u ah
habdhaqanka qofka si loo gaaro yoolal gaar ah. Inaad noqotid qof guuleysta waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof is-xakameyn kara. Habdhaqankaaga ayaa mar walba ku xugmin doona. Si aad u noqoto qof guuleysta noloshaada, ka dhig mid mar walba xakameysan. Qof mar walba meel walba ka hadla ha noqon. Qof mar walba meel walba ka muuqda ha noqon. Qof mar walba dadka la dooda ha noqon. Hana la doodin weligaa qof kaa level hooseeya. Hana kula doodin wax maalayacni haddaad qof la doodaysid. Haddii aad qof wax ka dhaadhicinaysidna si akhyaarad ugu sheeg. Inaad noqotid qof is-xakameeya waxay ku gaarsiisaa inaad ka mid noqotid dadka la jecel yahay. Haddii aad laakiin tahay midaas cagsigeed oo ah qof aan is-xakameyn, waxay kuu keeni kartaa inaad ka mid noqotid dadka farta lagu fiiqo oo dadka qof walba u arko oo yiraahdo qofkaas waa qof xun ama qofkaas waa qof aan wuxuu sheega ka fiirsan. Sida dad badan ay caado u tahay. Waxaan kuu sheegayaa noloshu ma ahan mid iska yaace, waa xakameyn iyo maamulid iyo habeen. Si aad u noqotid qof guuleysta, nafsadaada xakamee. Waxaad noqon doontaa qof mar walba guushu xaggiisa ay ahaatid. Waxaan naftaada iyo nafteyda u dardaarmayaa Alla ka cabsiga. Haddii aad hore noola joogto muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, muuqaalka inoo like gareeya, like share waa muhiim, subscribe waa muhiim, page-kana inoo like gareey, qaybtaas comment-iga nagu rab wixii fikir aad haydid. Mahadsanidin.